وأركتان سيؤدى يريهين أما سيهين وأركتان بلسه فكر خدام باكوتري 10 لما فلان لسي dagaalo qaraar oo shalay ka dhacay deegaanka ceel qoxle oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka waxa ay ku dileen ku dhawaad 8 ka tirsan maleeshiyaadka arxalaawayaasha ee al-shabaab iyo horjoogayaal oo kamid yahay dheer qabe qoorgaab oo maleeshiyaadka arxaka daran u qaabilsanaa jabhadaha iyadoo sidoo kale dagaalkaasi uu dhaawac aad u culus ka soo gaaray afayeenka argagixisada Cali Maxamuud Raage oo loo yaqaan Cali Dheere kan kale waa soo haligay horjooga soo haligay kaamirada warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ayaa dul istaagtay meydadka maleeshiyaadka arxalaawayaashu soo qaldeen iyadoona hilbahoodu haad cunayso waa aragtaan inay baaba'ayaan oo ay balanbalayaan saasaad u fujige oo gacanta u taagaysa ama saasaad u kala baxaysa deegaankan oo fariisin muhiim ah oo argagixisada ay doonayeen inay dib u qabsadaan balse waxa haleelay halaagooda hilbahoodana haada ayuu hunguri u noqday soo majesteyaasha xoogga dalka oo garab ka helaya dadka xaq u dirarka ah ee reer Hiiraan ayaa ceel qoxle ka difaacay dagaalka arxalaawayaasha ciidanka xoogga dalka iyo macawisleyda ayaana wali ku raad jooga baxsiga arxalaawayaasha cali waa soo ceeshtay wax badan baad falilaahay alxamdi laga dul tiri falilaahay alxamdi adaan ka dul dhahaynaa ogow wax badan yaa saqiir iyo dad masaakiina dushooda aad ka tiri intaad leysay falilaahay alxamdi adaan ka dul leenahay markaan ogow markaan adigay ku haysataa alla jabaa ku dhacay alla jabaa ku dhacay rabbi jabiir ana jabine waligood ma way jabi rabbi jabiir ana jabine waligood ma way jabi rabbi jabiir ana jabine waligood ma way jabi